إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء weli waxaan gudu jirnaa muxaadaroyinkan u hadlaynay masaa'il ku saabsan soonka waxaynu ku jirnaa qaybtii aan u hadlaynay maalmaha in la soomo ay sunnada tahay iyo maalmaha in la soomo la reebay gaar ahaan waxaan ku jirnaa maalmihii la reebay in la soomo maalmaha la reebay in la soomo waxa kamid ah siyaamu yawmil ciidayn al-fidr wal adha in la soomo maalmaha ciida ciidul fidriga iyo ciidul adha ciida weyn iyo ciida yar in maalmahooda la soomaayo ma banaano xukunka ku saabsan maalmaha ciida in la soomaayo culimadu waxay ku ijmaacsan yihiin in maalmaha in la soomo ay xaraan tahay soonkaasi farad ha noqdo sida qado oo kala ama nadar ha noqdo ama kafaara gud ha noqdo ama soon sunno ha noqdo arinta iyada waa la reebay hadii ay dhacdo xitaa qofka inuu ku nadro inuu maalin ciida uu soomaayo hadii ay marka nadarkii maalinta ku soo aadaay nadarkiisa xataa ansixi maayo sida raajixa weeyaan marka waxa la leeyahay maalmaha ciida in la soomo lama ogolo waa maalmo loo jidiyay in maxaan ku yiraahdaa la cuno oo dadku ay farxaan oo ay reereyn muujiyaan maalmaha in la soomo la reebo waxa kamid ah siyaamu ayaami tashriiq maalmaha loo yaqaan ayaamu tashriiq waxa weeyaan 11ka 12ka 13ka bisha dilxijja loo yaqaan bisha carafo bisha aan carafo u naqaano 11keeda iyo 12keeda iyo 13keeda oo ayaamu tashriiq loo yaqaanaay idan la soomo ma banaano waa maalmihii la iska reebay mas'ala kale waxa weeyaan siyaamu qabl ramadaan bi yawmin aw yawmayn haday dhacdo qofkii inuu maalin ama laba maalmood ka hor ramadaanka uu soomo mas'aladaasina waxaan ka soo hadalnay markii aan maaragtay aan ka hadlaynay ramadaanka soo galidiisi marka waxaan leeyahay ma wanaagsana qofka inuu maalin ama laba maalmood oo ka hormariyo uu is yiraahdo kulli wala soo khilaafi doonaa iska sii hormarso has ahaatee waxa laga reebay qofkii caado lahaan jiray oo maalmo dhaaf soomi jiray maalmihii uu soomi jiray haday ku soo aado ramadaanka maalin ama laba maalmood ka horeeyo inuu iska soomo inay banaan tahayna mas'ala hore u soo baraarujinay mas'ala kale oo arinta raacsan oo gudbayna oo ah siyaamu nisfi thani min shahr sha'ban bisha sha'ban kala bar markay gaadho soonka la soomaa muxuu yahay cumar arinta waa soo khilaafeen qolo waxay yiraahdeen la yukrahu siyaamu hadhihi al-ayyam mutlaqan maalmahan ay bisha sha'ban nis ay tahay ama niskeeda dabo bisha sha'ban in la soomaayo karaahiya ma ahan waa sida ay qabaan jumhuurul ulama oo ay kamid yihiin maalikiyada xanafiyada iyo sida madhabka ka ah xanaabilada agtooda waxay dilisanayaan ahadiisa tusinaysa nabiga kaleey salaatu wasalaam sha'banka inta ugu badan inuu soomayba qowl labaad mas'ala ku jiraan wuxuu leeyahay yukrahu siyam an-nisf min sha'ban fi ba'd al-ahalat in bisha sha'ban markii ay kala bargaartay in soon sunna la bilaabay ama la soomo sunna xaalada qaar baa la kaada xaalada kalena waxa dhici karta in aan la kahanin bay yiraahdeen waana qowlka uu saxiixsan Shaafici daagtooda Xanaabilada saas bay qabaan Imam Tirmidhi wuxuu yiri qala ba'd ahli al-ilm innahu yukrahu siyamuhu ahli al-ilm qaar kamid waxay yiraahdeen waxa la kahada in la soomo bisha sha'ban markay nis gaadho يعني ما رأيتي إن الصوم ما بنانا يعني والله كهذا بيقار كم أي رهدين ساسو إمام الترمذي ليه إمام الضحاوي وحجري كريه صيامه بعض العلماء نصف شعبان هدي لجارة إن الصوم علماء قار كم أيا كهذي وحين الدليل يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إياها إذا انتصف شعبان فلا تصوموا كلبر هدو شعبان جاراية هسومينا حديث كسرن كيسوا حسن على شرط مسلم شرط جيسنا بو هذه إنك علماء حديث كاسكو خلافين تصحيحين تيسي أو قار علماء كمد أي حديث يعني كدجان صحيح سيد الترمذي ابن حبان طحاوي هي علماء كلوآت وفربضا ذلك حديث صحيح كده وحكمنا الإمام الألباني وحونه كصحيحي صحيح الترمذي علماء كلنا وايد ضعيفين سيد ابن مهدي ابن معين إمام أحمد أبو زرعة علماء كلنا أو حديث كوحي هذين ومنكر بايدهين قول صدح المسألة كجرا وحوليه هي يحرم الصوم اليوم السادس عشر من شهر شعبان بش شعبان markay 16 ay gaadho in si gaar ah loo soomayo waa xaraan bay yiraahdeen 16 maalinta ah markii la dhaafana wixii ka dambeeyay in la soomana
way banaan tahay baa wax diida ma jir bay yiraahdeen. Ibn Hazmi ayaa hadalkaasi qaba. Mas'ala marka waxa raajaca qowlka dhahaya yukrahu sawmu nisfi thani min sha'ban, bisha sha'ban nis haday gaarta soon ma la soomi karo iyadoo lagu dhisayo xadiiska yaani maragtay hada aan soo sheegnay inuu sugan yahay. Bisha sha'ban ayaamul biidkeedu waa soomi kartaa sida 13ka 14 15 waa la soomi karaa. Isniin iyo khamiista waa la soomi karaa sida aan horeba u soo sheegnay. Laakiin in nisfu sha'ban kii la gaaro ama maalintaasi lagu gaar yeelo ama kadib soon sunna la bilaabo hadii uu qofka caado uusan hore u lahaa jir aysan ahayn arintaasi ma wanaagsan la iska ilaaliyo bala doona walaalayaal. Mas'ala kale arinta raacsan waxa weeyaan sawmu shahri rajab, bisha rajab oo la soomo. Culimadu waxay isku khilaafeen bisha rajab oo la soomo soonkiisa ma sunna ma samaahan. Qolo waxay yiraahdeen in bisha rajab la soomaayo waa mustahab waa sunna. Waa qowl Xanafiyada u sugnaaday iyo Shaafiicida Maalikiyada. waxay yiraahdeen bisha rajab waxay kamid tahay min al-ashhur al-hurmi bila hurmada leh bila hurmada in wanaag iyo cibaado la sameeyo oo la soomana hadii waa mustahab bay yiraahdeen. Culimada qaarna waxay yiraahdeen yukrahu ifraduhu bis-sawm, bisha rajab si gaar in loo soomaayo waa la kahada. Waa qowl Xanaabila u sugnaaday. Mas'abarka waxa raajaxa madhabka dhahaya bisha rajab si gaar in loo soomo yaani marata ama gaar soon lagu gaar yeelo hadii bilii hurmada la aad soomi jirtay ama aad soomisid ayaamul biid ama aad ka soomisid isniinta iyo khamiista way ku banaan tahay. Laakiin in bisha rajab si gaar ah soon lagu gaar yeelay arintaas ma jirto. halka waxa jira marka mas'ala in lagu baraarugo baahan. Mas'alaas waxa weeyaan walaalayaal dad badan baa waxa arkaysa markii la gaaro rajab 27 28 29 in ay soomayaan oo ay leeyihiin saddexda maalmood ee bisha rajab ugu dambaysa ayaa la soomayaa. saddexda maalmood oo bisha rajab ugu dambaysa ayaa la soomayaa yaani daliil thaabit oo sugan oo ku soo arooray ma jiro. mas'ala kale waxa jirto ay Soomaaliya inta badan ay ku wareersan ama yaani maragtay aysan fahamsaneen. mas'aladaas oo ah 27ka bisha rajab waa maalintii nabiga la dheelmiyay calayhi salaatu wasalaam. mas'aladaas la isku raacsano in ay bisha rajab 27 inuu u dhacay al-Israa wal Mi'raaj mas'ala culimada isku raacsan yihiin maahan. qowl aad u hooseeyo ama aad u liita ayaan qabo. marka waxa wanaagsan in taariikhda dib loogu noqdo oo aqwaasha culimadu waxay ka yiraahdeen arintaas dib loogu laabto. hadda al-Israa wal Mi'raaj kama hadlayne bisha rajab waxyaabo gaar ah oo la sameeyo ma jiraan oo ay bilaha kale kaga duwan tahay. bila hurmada la wixii la sameey jiray hadii la soomayay iyo wixii cibaado la sameeyay baa la sameeyaa oo bila hurmada ay kamid tahay. has ahaatee 27keeda iyo wixii ka dambeeya ayaa soon lagu gaar yeelaya arintaasi dil ku sugnaaday ma jiro. dad qaarna waxay sameeyaan bisha rajab marka ay dhalato salaada cishaa markii laga baxa ayay hadana adkaar ama wax ducooyin ay qaadaan oo ay rabbi firli wa tub calay ay kamid tahay. waxyaabahaasina idan dil ku soo aroor ma jiro. dadku waxa la doonaa inaysan ku mashquulin waxyaabo aan daliil lahayn. cibaado daliil kale ku dadaal waxaan daliil lahayn ama nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaanin waxa weeyaan ha isku mashquulin waqti badan ha iska gelin. maadaama aan ka hadlaynay masaa'il ramadaan ku saabsan waxaan rabaa inaan isu xusuusino isbaraarujina ramadaanka in taraawiix la dukada sunanimadeedii. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. qofkii ramadaanka istaago una istaagay rumayn uu ilaahay rumaysan yahay iyo ajir doon uu yahay qofka asaga dambigiisa wala dhaafiya buu nabiga calayhi salaatu wasalaam. xadiiskana waa saxiix Bukhari Muslim ayaa soo saaray. marka ramadaanka hadii la gaaro waxaan leeyahay walaalayaal ha lagu baraarugo in yaani maragtay sunna tahay in qiyaam ramadaan ama taraawiix la yimaado. rasuulku wuxuu ahaan jiray sallallahu alayhi alayhi yuraqibu fi qiyaam ramadaan min ghayri an ya'murahum fihi bi'azimatin. rasuulku wuxuu dadku ku boori jiray oo jeclaysiin jiray in ay la yimaadaan qiyaam ramadaan asiga oo aan amrinin si azima oo aan dhihin waajib uu ku yahay. wuxuuna dhihi jiray man qaama ramadaan iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. wa xadiiska aan soo marnay la mid yahay. ramadaanka waxa ku jira walaalayaal habeen loo yaqaan laylatul qadri oo khayr iyo ajir farabadan oo ku sugan yahay. waxa la doonaa marka dadka inuu ka faa'iideystaan habeenka asaga oo ay raadiyaan. allah jalla jalaaluhu wuxuu yiri inna anzalnahu fi laylatil qadri. wa suurada oo dhan ayaa waxay ka sheekeynaysaa laylatul qadri. wa suuratul qadri baa loo yaqaanaa. allah wuxuu tilmaamay jalla jalaaluhu quraanka inuu soo dejiyay habeenkii sharafta lahayd oo ah laylatul qadri. meel kale ilaahay wuxuu yiri inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. quraanka waxaan soo dejinay habeen barakaysan waa habeenkii laylatul qadri weeyaan naftirkeeda weeyaan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man qaama laylatal qadri iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
qofkii leelatul qadriga istaaga rumayn alla rumaysan daraadeed iyo ajir doon soo ah qofka damigiisa hor wala dhaafiyo waa saqaa'irta kabaa'irteeda had jeer waxa shardi in la toobad keeno xadiiskan waa sahih bukhari muslim ayaa soo saaray abdullah ibn umar ta'ala anhu wuxuu leeyahay anna rijala min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rakatirsan ashabti nabi muhammad uru laylatul qadri habeenkii laylatul qadri baa la tusiyay fil manam hurdada baa lagu tusiyay fi sab'i todobadi al-awaakhir u dabaysay todobada dambe ee bisha ramadaan yani 23 markii ramadaanka uu ahaa weeyaan rasuulku wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam ara ru'yakum qad tawada'at fi sab'i al-awaakhir waxaan arkay ru'yadiini in isku raacday todobada dambe ee bisha ramadaan faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'i al-awaakhir qofkii raadinaya laylatul qadri oo ku dadaalaya ha ku dadaala tobanka dambe ee bisha ramadaan buu nabi yiri alayhi salaatu wasalaam Aisha radhiyallahu anha waxay leedahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu i'tikaafi jiray tobanka dambe ee bisha ramadaan wuxuuna dhihi jiray laylatul qadri ka raadiya tobanka dambe ee bisha ramadaan waa xadiis sahih bukhari muslim soo saaray meel kale Aisha waxay tiri rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri taharru laylatul qadri fil witr min al-ashr al-awaakhir min ramadaan laylatul qadri ka raadiya tobanka dambe habeenada witrka tobanka dambe habeenada witrka waxa weeyaan waa 22ka 23ka 25ka 27ka 29ka yani tobanka dambe ee bisha ramadaan habeenada witrka ah ee tirada isdhaafka ah ka raadi buu nabi alayhi salaatu wasalaam Aisha waxay leedahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray hadii la gaaro tobanka dambe ee bisha ramadaan ahya al-layla kullahu habeenku dhan buu noolay jiray wa ayqada ahlahu dadkiisa waa soo kici jiray u fiirsada tobanka dambe ee bisha ramadaan hadii la gaaro rasuulka alayhi salaatu wasalaam habeenku dhan uu nooleynayay ehelkiisana waa soo kicinayay wajadda wa shadda al-mi'zara wuu dadaalayay marada ayuu dhaxda ku xiranayay waa xadiis saxiixo bukhari muslim ay soo saareen marka tobanka dambe ee bisha ramadaan hadii la gaarana waxa la doonayaa si gaar ah cibaadada lagu dadaalo salaatul leelki iyo tahajjudki iyo maxaan ku raadin cibaadada iyo quraan akhriski in lagu dadaalo hadii Aisha ay leedahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam tobanka dambe ee ramadaan markii la gaaro ahya al-layla kullahu bal fiiri habeenka oo dhan buu nooleeyay kullu waa lafdu tawkiid waa lafdu xoojinaya al-layl buu xoojinaya ahya al-layla kullahu habeenka oo dhan buu nooleeyay nabi alayhi salaatu wasalaam ehelkiisa buu ka soo kicinayay wuu dadaalayay marada ay dhaxda ku xiranayay xadiiskaas oo saxiix bukhari muslim ay soo saareen hadii rasuulka alayhi salaam tobanka dambe markii la gaaro bisha ramadaan cibaado in liimaado ku dadaalayay wuxuu sameeyeen dheeri uu sameeyay inaan anagana dadaalno oo tobanka dambe aan ku dadaalnaay 20 ka hor wixii sameey jirnay wax ka badan inaan sameeynaay arintaasi way wanaagsan tahay walaalayaal waxaana ugu dayeynaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam Aisha waxay leedahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yajtahidu fi ramadaan ma la yajtahidu fi ghayrihi ramadaanku wuxuu ku dadaali jiray wuxuu san ku dadaalinin ramadaanka qeyrkiisa wa fil 10 al-awaakhir tobanka dambe oo minhu ramadaan ka tirsan wuxuu ku dadaalayay ma la yajtahidu fi ghayrihi tobanka dambe si uusan u dadaalinin 20kii ka horeeyay si ka banbu dadaal u iimaanay xadiiskaasna waa xadiis saxiix muslim ayaa soo saaray sidoo kale Aisha waxay tiri iyadoo rasuulka la hadlaysa alayhi salaatu wasalaam ya rasuul allah ara'ayta in alimtu ay laylatul qadri ma aqulu fiha bal ka waran rasuulkii allow hadii aan ogaado habeenka ay tahay laylatul qadri maxaan dhahayaa qaal nabi wuxuu yiri quuli waxa tiraahdaa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ilaahiyow adigu waxa tahay mid cafiye dadka cafigana waa jeceshahay ay cafi dheh waa xadiis saxiix imaam tirmidhi oo soo saaray imaam tirmidhi oo ku sheegay inuu yahay hasan saxiixun soo kala Aisha waxay leedahay ta'ala anha kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka wuxuu ahaa yujaawiru fil 10 al-awaakhir min ramadaan bisha ramadaan tobankeeda markii la gaaro i'tikaaf buu la imaajiri oo yaqulu wuxuu dhihi jiray taharru laylatul qadri fil 10 al-awaakhir min ramadaan ka raadiya oo laylatul qadri ka doodoona oo ku dadaala tobanka dambe ee bisha ramadaan mar hadii la gaaro tobanka dambe bisha ramadaan waxa la rabaa in lagu dadaalo sidii laylatul qadri loo waafaqi lahaa insha Allah ta'ala mas'aladan ku saabsan laylatul qadriga muharram madxigta ayaan ku dhameystiri doonaa hada wa billahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh